الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ولا ليال إن شاء الله تعالى عاوة نجهبين بان جوجنا صلاة المغرب أن هذا تكني صلاة دي عشاء يا تراويح دينا سوينه وهبين كي وجوه الريو بشهر رمضان بإذن الله تبارك وتعالى. waxaan rabaa inaan arrin muhiima insha allahu tacaala naftayda iyo tiinaba aan ku baraarujiyo arrintaas oo ah ducada bishaan ramadaan la ducaysto, cajaa'ibta iyo waxyaabaha ku jira, iyo ducooyin gaar oo rasuulku sala allahu calayhi waalihi wasalam u dardaarmay na waan rabaa insha allahu tacaala. Saddex qodob baan marka rabaa inaan kusoo koobo. qodobka koobaad acmaasha bisha ramadaan ugu fadli badan maxay tahay, waxyaabaha in la qabto marka waad wada ogtihiin. haddii aan si kormar ah sida in la soomo, qofkii sooma ilaahay subxaanahu watacaala man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min danbi, in habeenkii la istaago oo salaad loo istaago taraawiix iyo tahajud iyo qiyaam ilaahay wuxuu ku waafajiyo. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب إلهي بعد ذنوب هذه أردن كرافية. إن ضدك عنتلسيو أول أفريو إن تقفل بتبرتيسا ضدك سلف كقار كتبة وحي أورنجرين رمضان هدي لك جارو وقرآن لا أقريو يدد لقوديو مركا قودين تبش رمضان يا وحسين تؤاد بأفضل بدن تهي أرنت أفرادنا وإن لود ذالو قرآن كإن الأقريه أو بشان قف ولي بإنتو كأوذو أو رمي قرآن كإنت جير يكوس ورجال عظم رمي بإذن الله تبارك وتعالى. وعكم إذا وحيابها فضل قبل المساجد كولو اعتكافو يجوجد ديسا إلا بتصده أو سي إنها هاجي وضاضا دي حبنها هاجي وردن أي أصومان بإذن الله تبارك وتعالى. قف كأوذو أو بشان رمضان عمره هذا عمر رمضان لآذي وحاول أنت رسولك ولا لحجي صلى الله عليه وآله وسلم. إن لبديو ذكر إلهي، إن لبديو دعاء، إن لبديو استغفارته يدم بداف إن إلهي لو يديستو. هذا بقى أرنت عن السعودية مهم كابش أنا وحن ربا أرمها كلوا وح لو ذا براروسية هاي دعاء إن سجار وبراروجيو. هرت الدعاء أهمية بيئة ولا هاي إن للدعايستو. جار أهنا بشهر رمضان للدعايستو. إلهي باوح إليه سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. مركا آيات داس وحال دحجلي آياته بشا صونك كهد ليي أو قرآن كمركو كهد ليي صونك لجاه ليي أحكامتي صونك لجاه ليي بو إلهي كل حدري أهمية أيلاد هيبا مركا لوجود دري. الله وحوله قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إبريا بو الليلي أنا إذن أجيبيه وإذن ياليه إذنكو إبريا. رسولك صلى الله عليه وسلم محاكسه أن صدح قوله دعاء ذو مستجاب ولا أجيبه وحاكم إذا إمام كعادل كدعاء ذي سوال أجيبه وقفك صومنا ولا أجيبه مركه وأفريه الدعاء ذو كدعايسته qofka madluumka oo la dulmiyeyna ducadiisa waa isagana maqbuul oo hadduu qofka intii la dulmiyo uu qofkaas uu habaaro ama ilaahay la hoos galo isagana ducadiisu dhulka ma dhacdee waa la ajiibaa. allah wuxuu leeyahay cutaqaa dad naarta laga xoreeyo habeen walba iyo maalin walba oo bisha ramadaan naarta dad laga xoreeyaa. allahumma actiq riqaabana min annaar, ilaahay naga xoreeyo. wuxuu sheegay rasuulku mar kale uu ku soo daray dacwada qofka musaafirka ah isagana ducadiisu waa mustajaabo. haddaba waxaa la yidhaahdaa qofka sooman u fiirso wuxuu leeyahay duca la aqbalayuu leeyahay haddii uu ilaahay subxaanahu watacaala uu qofkaasi uu baryo ducadaasna ilaa uu ka afuro ayay soconaysaa. sida raajixa culimmadu waxay leeyihiin waa cinda aliftaar, waa marka la afurayo ka hor miyaa kadib miyaa afurka dhexdiisa miyaa, intaasoo dhan culimmadu way yidhaahdeen. ducaduna waa cibaado oo u baahan maaragtay inaan ku cibaadaysano biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. haddaba walaalayaal haddii aan nidhi ducadu ahamiyadaasay leedahay, waxaan rabaa ducooyin gaar ah inaan ku tuso biidni illaahi tabaaraka wa tacaala
oo rasuulku sallallahu alayhi wa alihi wasallam uu ku ducaysan jiray. Duca walibana waxay leedahay munaasabad iyo qof uu rasuulku si gaar ah ugu sheegay bay leedahay. ducooyinka waxaa fadliga badan sidoodaba guud ahaan kuwa ka sugnaaday rasuulka sallallahu alayhi wa alihi wasallam. waxaa jira ducooyin carabi ah oo dadku iska aqriyaan qaarkood, yacni duca carabi ah oo isku toosan oo qurux badan oo qofku aqrinayo, aimo badan arkaysan iyagoo aqrinayo, xitaa aimada xaramka qaarkood ay aqrinayaan oo ducadan dheer oo laga yaabo inayna markaa axaadiis ayna markaa haysanin ama ayna rasuulka ka sugnaanin. waa duco wanaagsan, waa duco sax ah, laakiin waxaa ka fadli badan ducada ka sugan nabiyullaahi muxamed sallallahu alayhi wa alihi wasallam. haddaba weliba waxaan rabaa inaan ku tuso ducooyin la yidhaha jawaamicul kelim. waa kuwo iyagu si guud, waa erayo kooban laakiin macno weyn bay ka hadlayaan. waxaa ka mid a ducada la yidhaha ducadii xasan binu cali radiallahu canhu wa ardaah oo qunuudka, ilaan bishaan ramadaan markaan ku jirno, qunuudku ramadaan uun gooni kuma ahee salaatuleylka oo dhan buu la socdaa, oo ragcadda u dambeeya waa la qunuudaa oo waa la ducaystaa oo gacmaha ilaahay loo taagaa. laakiin dadku hadda inta badan bisha ramadaan baa taraawiixda iyo tahajudka la isugu yimaadaa. marka ducadan la aqriyo oo allaahuma hdinii fi man hadayt wacaafinii fi man caafayt watawallanii fi man tawallayt wabaarik lanii min alkhayri fima acطayt waqinii shara ma qadayt fainaka taqdii walaa yuqضى calayk inahu laa yadilu man waalayt walaa yacizu man caadayt tabaarakta rabbana watacaalayt laa manja'a minka ila ilayk. ducadaas ducada waxaa la yidhahdaa xasan binu cali radiallahu canhu, cali bin abi aalib wiilkii uu dhalay oo sibtu rasuulillaahi ahaa. xasan iyo xuseen waad garan, faatimatu zahra ay dhashay ayuu rasuulku baray sallallahu alayhi wa alihi wasallam. waa ducada marka qanuudka xilligeeda la aqriyo. waxaa jira duca kale oo la yidhaahdo ducadaas marka aan sheegnay qofkii u baahan inuu barto oo korka aan ka xifdisanayn, kitaabka xisnu muslimka la yidhahda yar maaragtay qof walba aan filayo guri walba inuu yaalo, hadduuna oolina waad soo qaadan kartaa. beijka 79 bay ducadaas uga qoran tahay. haddii aad rabto inaad barato ood xifdido, rasuulku wiilka awoowa uu yahay uu jecelaa ayuu xifdisiiyo oo baray. marka waa duco fiican oo qunuudka la aqrista wey, ama keligaa tuko ama imaamku ha ku tujiyo. salaatuleyl ba haddaad tukan ood witirkii aad tukanayso, ducada la raba in la aqriyo wa. kitaabkaas aan sheegnay 79 beijka ka raadi biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. waxaa kaloo jirtaa duca la yidhahdo ducada cali binu abi aalib. u fiirso, waa qoyskii weeye. xasan baynu ka soo hadalnay, haddana cali binu abi aalib oo aabihii abuu ducadan kale rasuulku baray, oo iyaduna allaahuma inii acuudu biridaaka min sakhatika wa bimucaafaatika min cuquubatika wa acuudu bika minka laa uxsii hanaa'an calayka anta kama athnayta calaa nafsik. ducadaas iyaduna kitaabka hal mar oo kale aan xisnu muslimka ah beijka ku xiga oo 80 bay uga taallaa. waa kitaabka yar ee xusnu muslimka beijka 80 ayay ducada cali bin abi aalib oo rasuulku baray. macaanida ereyadani waa macaani aad u balbalaaran wey, waa duco aad u macaan. marka insha allahu tacaala laftigeeda raba hadda inaan ku aqriyo, macnaheedana insha allahu tacaala waad baran doontaa. allahuma inii acuudu biridaaka min sakhatik. marka ducadaana ka raadi beijka 80. ducada xigta waa ducada cumar bin alkhataab radia allahu canhu wa ardaah. iyaduna way kusii xigtaayo allahuma iyaaka nacbud walaka nusalli wanasjud wailayka nasca wanaxfid narjuu raxmataka wanakhsha cadaabaka ina cadaabaka bilkaafiriina mulxaq. allahuma inaa nastaciinuka wanastakfiruka wanastahdiik. ducadaas iyaduna waxay ku taalaa beijka 80 ilaa 81 ka raadi iyadana insha allah. beijka 81 waa ducada cumar bin alkhataab baa iyadana la yidhaahdaa. ducada xigta ducada caaisha radiallahu canha rasuulka amray sallallahu alayhi wasalam inay barato. bal u fiirso, caaisha rasuulku wuu jeclaa, waa xaaskiisii, wax fiican buuna barayay. waxayna ahayd ducadaasi allahuma inii as'aluka min alkhayri kullihi
عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته لي رشدا دعاء ودعاء هذه فضل بدن كتابك صفة صلاة النبي oo inta badan kitaabka Sheikh Al-Albani isagana dadku ay haystaan page-ka 161 ayay ku taala haddii kalena aad Google iyo waxyaabaha laga raadiyaa haddii meel kale ku taala aadan garanaynin ducada erayada aan aqriyo intaad qorto adigu geli Allahumma inni as'aluka min al-khayri kullihi aajilihi wa ajilihi inta geli way ku soo baxaysaa biidnillahi tabaarak ducadaas waxaan u baraarujinayaa waa duca aad u fadli badan oo khayrkii adduun iyo kii aakhiraba lagu koobay oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu ilaahay subhanahu wa ta'ala wanaagsan oo dhan uu weydiistay wixii xun oo dhan uu ka magan galay marka Aisha oo xaaskiisii Abu Baray marka wax fiican buu baray Aisha inaguna waa inaan barano biidnillahi tabaaraka wa ta'ala waxaa jira duca kale oo rasuulku uu maqlay sallallahu alayhi wa alihi wasallam nin saxaabi oo aqrinaya دعادي مركو دغيستي با وحو يري نينكو وحو اقرينايي اللهم اني اسالك يا الله بانك الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي ذنوبي انك انت الغفور الرحيم دعاء سؤقري دعاء كتاب كان حسن مسلم كان هيي ayay page-ka 45 bay uga taala hadda fiiriso 45 ninka markuu ducada aqriyay اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم رسولك وحول قد غفر له ولا إنك والله ضعفه هذا دنبي قاعد إن ضعفه سو مربتي رسولك وحول ولا إنك والله ضعفه هذا دنبي سوى والله ضعف والدعاء أنا قريب وحاجر الرسول صلى الله عليه وسلم مركل ومقله هذا النينك له أو أقرنا أو يسونا أقرنا يا اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار دعاء كتاب كان حسن مسلم كائن هي مرلبات بيجك أفرتن إيه الشنبة كتالا دعاء تي كوري سيدو هل بيج بيكو ذا يالان أفرتن إيه الشن أي كتالا دعاء مركو رسولكم مغلين نين أقرنا آية وحو يلي والذي نفسي بيدي وهم كبار تيبور معبود كان نفتيدو قعنتي سكجرته ولا ننكني إلهي وحو كبري باسمه الأعظم مقعي ويناء إلهي كاسو هدي لغو بريو أجيبيو هدي وحلو ويديست الله سبحانه وتعالى وأجيبيو مركا كاسو كبريو مركا ودعاء الله يابله دعاء وحو كبرات رسولكو اسم الله الأعظم إنو كجو مقع وحاجر أسماء إلهي كمدأة واسم الأعظم اللي يدهدو هدي إلهي لغو بريو إلهي ويلي وحلو وحلو ويديست ها مقع والا قريه وقرصونيه ما الحي با ما القيوم با ما المن إلهي با قرد متكويه مركا لكن دعاء نكجو دعاء مرأة كعليو هديبو رسولك وكرارت اسم الأعظم إنو كجرو اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار والدعاء ذا سوية إيادنا دعاء أسناد وحل دين كرم هذا اسم الأعظم وكجر وحاكلو جرا دعاء عائشة رضي الله عنها أكتر يا رسول الله هدو إلهي تصبش رمضان ليلة القدر إلين ليلة القدر بالرادين إياه أو خير من 1000 شهر كفضل بدن والرسول يقول صلى الله عليه وسلم حديث كما بخاري صاري من قام ليلة القدر من قام رمضان وحديث كله كان سجار أبو ليلة القدر أو شيء من قام ليلة القدر
إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ذنبه سو رنبالا نافيا مركا هبينك رسولك وحي كتر عائشة رضي الله عنها يا رسول الله هدي إلهي إلى كل ميو ليلة القدر محان كدو عيسته دعادي باتنا وحول رسولك وحي كدو عيسته اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني سيدا دبور اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ودعاء كوبون اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني سو مربتد عفو إلهي سو مربتد سماحة إلهي يعضون أمد إلهي عفي أو أن اسود عفينو إلهينا عفي ويديسو إليادانا كو ويديسو رسولك عائشة أوبري رضي الله عنها طيب وحاجرة دعاء يدنا جوامع ذا كجرتا أو فضل بدن دعاء وانا آيات قرآن وندعو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآيات الله بقول يكوبا في لي سورة البقرة مركز الدعاء الحسنة في الآخرة علماء وحيد هذين الحسنة في الدنيا حسنة كجرت قرآنك أود إلهي بريس أدونك والعلم النافع والعمل الصالح وعلم النافع إن إلهي كسيو عمل وناكسن الله كسيو طيب إيو والحسنة في الآخرة وحي نقنس الحسنة في الدنيا وحانير وحوية العلم النافع والعمل الصالح إيو كل خير الدنيا الدنيا لن خير كيس طيب والحسنة في الآخرة ودخول الجنة حسنة آخرة لو شيقنا وجنة ويان طيب وما لنت قيامه وإلهي سبحانه وتعالى فزعي أرججها وكابت بادية ويا دعوينك أقري مركو هرئت بلابنا كبلو إلهي حمديسا إينات كحمديدو أود أمانتو رسولكنا كسل صلى الله عليه وآله وسلم مركات لما يسنى رسولك كسلي صلى الله عليه وآله وسلم بإذن الله تبارك وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى والصفات العلى إنه إلهي صوم كنا أقبله قيام كنا أقبله ضاعات كنا لن أقبله عبادات كورن إنك أقبله إلهينا سبحانه وتعالى رمضان إنه النبض أعاوى إنه الرئيسين نور لما يستروا إلهينا سبحانه وتعالى عماشا إنك قدوم إنك أقبله جزاكم الله خير وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.